Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharkan waxa uu ku saabsan yahay vocabularies ama ereyo waxa afka Soomaaliga lagu yiraahdo. Markii la baranayo luqadda Ingiriisiga waa muhiim in uu qofka uuna barto ereyo ku filan, sidaas darteed ereyadan waa ereyo aan isleeyahay waa muhiim. Sidaas darteed fadlan haddii aadan subscribe dhihin Himula Academy subscribe dheh si aad u hesho muuqaaladii ugu dambeeyay ee aan soo gelino. Iminkana waxaan guda galaynaa casharka. Marka vocabularies waxa dhahnay waxa loola jeedaa waa ereyo ama waxay la macno tahay luqadda Ingiriisiga. Si kale haddaan u dhigno words ay la mid tahay marka. Sidoo kale waxaa jira waxa la yiraahdo phrases. Marka phraseska iyo wordska way kala duwan yihiin. Phraseska waa jumlad gaaban oo leh maaragtay ficil sameeye lagu sameeye iyo object ama waxay sameynaysaa macno guud ay sameynaysaa marka waa jumlad marka, laakiin tan waa words waa ereyo kaliya wax jumlad ah ma sameynayso marka. Waa hagaag qaybta ugu horeysa waa laba erey isku xiran marka find information ayaa dhahnay ereyga find information waxa loola jeedaa akhbaar helis marka ereyga find waa or to find waxa loola jeedaa in la helo ama helis. Information waxa dhahnay waa akhbaar marka ama warbixin. Ereyga information sidoo kale mararka qaar waxa loo soo gaabiyaa info ee loo soo gaabiyaa marka. Ereyga labaad waxa dhahnay parties. Ereyga parties waxa loola jeedaa xaflado. Ereyga parties waxa loola jeedaa xaflado. Sidoo kale wuxuu noqdaa maaragtay xisbiyo mararka qaar wuu noqdaa marka. Laakiin waxay ku xiran tahay jumladaha ay ku jirto ayay ku xiran tahay marka. Hadda laakiin waxaan ula jeednaa xaflado marka. Once a month waxa dhahnay marka bishiiba hal mar ayaa loola jeedaa. Once a month bishiiba mar, bishiiba hal mar, bishiiba hal waqti ayaa loola jeedaa. Provide waxa dhahnay waa siin ama bixin. Ereyga to provide waxa loola jeedaa wax siin ama wax keenis ama wax bixin ayaa loola jeedaa. Ereyga meals waxa loola jeedaa cuntada baseelka ah ayaa la dhahaa marka meals. Sidoo kale waxaa jirta food oo ah cunto. taa marka food ama food waxa loola jeedaa ama waxay ugu duwan tahay mealska waa cuntada guud, laakiin meals waxa loola jeedaa marka cuntada baseelka ayaa la yiraahdaa marka. Ereyga xiga waa breakfast ama quraac. Ereyga breakfast waxa la yiraahdaa marka quraac ayaa la yiraahdaa marka. Ereyga xiga waa dinner ama casho. Ereyga waa dinner ama casho. Ereyga xiga ama ereyada xiga ereyga koowaad waa application waxa loola jeedaa ereygaasi arji ayaa lahaa marka. Halkan xa'da waxaan ula jeeday arji ayaan ula jeeday qoraalka ayaa iga qaldamay. Arji ama codsi shaqo ayuu noqon karaa ama codsi kale ayuu noqon karaa marka waa codsi ayaa loola jeedaa marka application. Fill out or to fill out waxa loola jeedaa marka buuxin. Markii wax la buuxinayo ayaa loola jeedaa marka. Ereyga interview waxa dhahnay waa wareysi. Ereygan interview ayaa lahaa marka waa wareysi marka. Ereyga xiga waa erey dhawaqiisa muhiim uu yahay inaad si fiican u qorto. Waxa la yiraahdaa initiation ayaa la yiraahdaa marka. Initiation ayaa la yiraahdaa marka. Initiation ayaa la yiraahdaa marka waa horudhac marka. Markii warbixin laga hadlayo ama wax laga hadlayo horudhac laga sameeyo ayaa initiation la yiraahdaa marka. Initiation ayaa la yiraahdaa ereygaas. A secret waxa dhahnay waa marka waa sir ama sirta sirdoonka ay hayaan ama sirta caadiga ah wax badan way noqon kartaa. A couple of times waxa dhahnay waqtiyo dhowr ah. Ereyga a couple of times waxa la yiraahdaa marka dhowr waqti ama dhowr jeer ayaana waa lagu fasiri karaa marka. Marka ereyadii halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Dabcan waxaan u arkayay ereyadan inay yihiin ereyo muhiim ah qofkana way ka caawin karaan markuu isticmaalayo luqadda. Intaan cashar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo.